السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalaha qaaliga ah ee ku tacan barteena YouTube-ka ee waayashag jimca wanaagsan sida uu ciwaankiisuba yahay muuqaalkeenan waxa aynu kaga hadli doonaa maxaan ka baran karnaa Maxamed Yunis waa dhaqaalayahan Bangladesh ah oo abaalmarin u helay jaahisada caalamiga ah ee Nobel Peace Prize sanadkii 2006 waxa uu sidoo kale ahaa aasaasihii iyo agaasimihii guud ee bankiga Grameen oo ah banki bixiya deymaha yaryar si loo caawiyo dadka danyarta ah ee saboolnimadu daashatay fursadna loo siiyo si ay ganacsiyo yaryar u abuurtaan ugana xoroobaan gaajada iyo saboolnimada. Maxamed Yunis waxa uu ku dhashay Jitaanka Bangladesh bishii Juun 28 sanadkii 1940 waxa uu fursad u helay waxbarasho heer sare ah kadib markii uu dhameeyay jaamacadda Dhaka ayuu Yunis fursad u helay Fulbright scholarship oo deeq waxbarasho ah taasoo u sahashay in uu u safro dalka Mareykanka isagoo oo jaamacadda Fulbright ka diyaariyay dhaqaalaha kana qaatay shahaadada PhD-da intii lagu guda jiray dagaalkii xoreynta Bangladesh ee dhacay sanadkii 1970. Yunis waxa uu dhidibada u taagay guddi xuquuqda muwaadiniinta Bangladeshka ah ee Mareykanka ku nool u dooda isagoo oo sameeyay wargeys lagu magacaabi jiray Bangladesh Newsletter oo ay xog iyo macluumaad ku saabsan dawladdu ka helaan dadka ku nool Mareykanka si ay xoreynta wadankooda uga qayb qaataan xorriyadii Bangladesh ee sanadkii 1971. Professor Yunis waxa uu ku soo laabtay wadankiisii sanadkii 1972. Situation where they have to beg for existence. Is this the fault of the person? Repeatedly I come to the same conclusion. There is nothing wrong with the people. Poverty is not created by the poor people. Poverty is created by the system that we have built, the concepts that we have created. That's what created poverty. waxa uuna ku biiray qaybta dhaqaalaha ee jaamacadda Jitaton wax yar kadib waxa uu la kulmay abaaro iyo gaajo daran oo dadka deegaanka la soo gudboonaaday waxa uuna aasaasay barnaamij sare loogu qaadayo dhaqaalaha reer miyiga. Waxa uu aaminsanaa in deymo yaryar la siiyo dadka danyarta ah ee waratada ah si ay noloshooda u kaafiyaan iyaga oo aan cidna gacanta u hoorsanayn kadibna ay si tartiib ah lacagta deynta isaga bixiyaan. waxa uu jeebkiisa ka deymiyay $27,000 isagoo oo siiyay 42 qof oo deegaanka ku noolaa si ay dhaqaalahooda ugu kabaan. dadaal badan kadib waxa uu ku guuleystay in uu aasaaso Grameen Banki oo ah banki deymo yaryar ku yabooha dadka saboolka ah. Dr. Maxamed Yunis fikradda garab istaagga dadka faqiirka ah waxa ku dhiirigeliyay hooyadiis oo had iyo jeer caawin jirtay dadka tuugsanaya ee albaabka guriga soo hor istaaga subaxii. bishii May 2008 Grameen Banki waxa uu gaaray 7.5 milyan oo amaahdayaal ah 97% ka mid ah waxa ay noqdeen dumar warato ah. waxa uu bankigu leeyahay 2525 xarumood. waxa uu sidoo kale caawiyay 82,070 xaafadood oo Bangladesh ku yaala. Yunis waxa uu sidoo kale yeelay tiro shirkado ah si macaluusha iyo saboolnimada loo yareeyo waxaana ka mid ah Grameen Fund, Grameen Shakti iyo kuwo kale oo badan. Maxamed Yunis bishii Oktoobar sanadkii 2006 ayuu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize isagoo oo ku mutaystay dadaalkii iyo heerarkii kala duwanaa ee uu la galay la dagaalanka saboolnimada iyo horumarinta arrimaha bulshada. waxaa sidoo kale lagu doonsiyay dhowr abaalmarin oo kala duwan sida abaalmarinta Roman Magsaysay iyo abaalmarinta cuntada adduunka. waxa uu ka mid yahay dadka saameynta ugu badan ku leh adduunka isagoo oo la geliyo mararka qaar booskii Nelson Mandela inkastoo ay ku kala duwan yihiin halganka halka ay ka kala bilaabeen. haddii aad timaado Bangladesh oo ah wadan dadkiisu uu ka badan yahay xajmiga bad ee dhulkooda heerka faqriguna uu joogo meeshii ugu darnayd waxa ugu weyn ee aad ku fikiri karto waa sidii aad uga bixin lahayd dadkaaga saboolnimada heerkaas gaartay ee ku habsatay bulshadaas. Yunis wadadaas ayuu qaaday isagoo oo ka dhabeeyay dardaarankii hooyadii ee ahayd in uu caawiyo masaakiinta iyo wax mahaysatada. wax badan ayay ku qaadatay in uu ka fikiro sidii loo gaarsiin lahaa adeeg lacagaha ama habka xawaaladaha iyo xitaa bankiga casriga ah
deegaanada baadiyaha ah ee dalkiisa. ugu dambeyn waxa uu ku guuleystay hirgelintiisii sanadkii 1976 xilligii ugu saamaynta badnaa ee bankiga waxa uu ahaa intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2007 xilligaas oo uu bankigu sameeyay deymihii ugu badnaa isla markaana uu dejiyay barnaamij dib u dejin dalka masaakiinta ah loo sameynayo. sheekada Yunis waxa aan ka baranaynaa doorka hooyooyinku ay ku leeyihiin barbaarinta ubadka. waxa uu ka arkay sadaqada iyo wanaageeda hooyadiisa se waxa uu gaarsiiyay heer caalami ah. taas waa casharka guud ee sheekada. si la mid ah casharada laga baran karo waxaa qayb ka ah qofka in uu wanaaga ku raaxaysanayo haddii waxa uu sameynayo ay dhab ka yihiin. maxamed waa uu guuleystay hal abuurkiisiina waa uu yagleelay waxaase guushooda qurxiyay in ay sabab u ahaayeen guusha kumanaan qofood oo saameyn weyn ku lahaa noloshiisa. Soomaalida dadkeeda wax haysataa inta badan wax waa ay bixiyaan umase bixiyaan si cilmiyeysan sida Professor Yunis. dad badan ayaa caawiya ardayda reer miyiga iyo masaakiinta qaab reernimo iyo qaraabonimo ah. laakiin sida Yunis haddii maalqabeennada Soomaaliyeed qaab cilmiyeysan oo ay hal mar ku caawiyaan dadka xoogsatada ah kadibna ay deynta ka celiyaan si ay u siiyaan xoogsato cusub waxay yareyn lahayd faqriga iyo rajabeelka dhaqaale. ugu dambeyn waxa aan ka baran karnaa casharo intaa ka badan inta aan ku kulmi doono muuqaalka kan xiga. wassalaamu calaykum.